waxaan goor dhow soo gaarnay magaalada Dowxa ee caasimadda dalka Qatar halkaas oo wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah markii wafdiga madaxweynaha uu ka soo degay garoonka Hamad International waxaa ku soo dhaweeyay madax sare oo ka tirsan dalkan waxaana loo galbiyay meeshii loogu talagalay wafdiga madaxweynaha ayaa inta ay ku sugan yihiin dalkan waxay wada hadallo la yeelan doonaan amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani halka golaha wasiirada ee madaxweynaha wehelinayana ay kulamo la yeelan doonaan iyo wada hadallo dhigooda golaha wasiirada ee dalkan waxaa safarkan madaxweynaha ku weheliyay wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah Mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka caafimaadka Dr. Fawziya Abikar iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac waxaan rajaynaynaa inaan sii xoojino xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya dowladaha Qatar iyo Soomaaliya wada hadalladuna ay noqon doonaan insha Allah kuwa miro dhala